saan ogsoonahay qarniyadii dambe waxaa caalamka soo maray dowlado kala duwan kuwaas oo ay soo xukumeen dadyow kala duwan. haddaba dhagaystayaal waxaan xogtan ku eegi doonaa 15 nin ee ugu xumayd ee soo mara xukunka dowladaha qarniyadii dambe. ku soo dhawaada qaybta koowaad ee taxanaha xogtan. fadlan si ku dhaafin qaybaha dambe like iyo subscribe saar. mahadsanid. Adolf Hitler hogaamiyihii Jarmalka intii u dhaxaysay sanadii 1933 ilaa 1945 waa mid ka mid ah 15 nin ee ugu xumayd abid ee soo mara xukunka dowladaha kuwaas oo geystay falal lidi ku ah bini'aadamtinimada. Adolf Hitler wuxuu ka tirsanaa xisbigii Nazi. waxaa laga yaabaa inuu ahaa hogaamiyihii ugu aqalka badnaa hal-abuurnimo iyo hogaami ahaanba. wuxuu in badan mas'uul ka ahaa xasuuqii iyo dagaalkii labaad ee adduunka. wuxuu rumaysnaa yahuudu in ay yihiin sababaha asalka u ah dhibaatooyinka oo dhan. wuxuuna bilaabay inuu yareeyo. ficiladiisu waxay keeneen dhimasho ka badan 50 milyan oo qof iyo dhaawac intaa ka badan. qaybta koowaad ee taxanaha xogtan ayaa intaa ku eg dhagaystayaal. halka aad kala socotaan waa Xogmaal News. mahadsanidin.